warbixin lagu daabacay warbaahinta military oo ka hadasha arrimaha militariga Mareykanka ayaa warbixinteedan waxay kaga hadashay qorshaha Somaliland ee ah in Mareykanku uu soo dego Somaliland kana helo saldhig military. Somaliland ayaa si rasmi ah ugu bandhigtay ayaa lagu yiri warbixintan qorshe istiraatiiji ah oo ay ku doonayso inay ku hesho aqoonsi caalami ah iyadoo Mareykanka uu ballan qaadaysa saldhig military oo muhiim ah oo ku yaala dekada Berbera iyo marin gaar ah oo ku heli karo kheyraad macdan ah oo qaali ah sida lithium iyo coltan. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay si kordhayaan walaacyada amni ee badda cas isla markaasina ay xoogaysanayaan tartamada quwadaha waaweyn ee dunida ee Afrika. Kongareeska Mareykanka ayaa waxa hor yaala hindasa sharciyeed lambarkiisu yahay HR 3992 oo la horgeeyay bishii June 2025 kaas oo dhigaya in Somaliland loo aqoonsado dal madax bannaan oo ka go'ay Soomaaliya. Inkastoo muhiim u yahay haddana hindisahan wali waxa uu u xayiran yahay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ee Mareykanka. Somaliland ayaa hore u ahayd maxmiyad uu Ingiriisku gumaysan jiray waxayna xorriyadeeda qaadatay 26 June 1960 balse waxay si degdeg ah ula midowday ayaa warbixinta lagu yiri Soomaaliya iyo Talyaaniga midowgaasi wuxuu burburay dagaalkii sokeeye ee 1980 taasi oo keentay in 18 May 1991 ay dib ugu dhawaaqdo Somaliland madax bannaanideeda. Muddo ka badan 30 sano Somaliland waxay dhisatay nidaam dawladeed oo shaqeynaya iyadoo qabsatayna doorashooyin leh lacag u gaar ah nidaam garsoor iyo ciidan qaran taasi oo ka duwan xaaladda amni darro ee weli ka jirta koonfurta Soomaaliya. bishii December 2025 Israa'iil ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland iyadoo tallaabadaasina ay si degdeg ah ugu falceliyeen Soomaaliya iyo midowga Afrika iyo dalalka Carbeed. Dabayaaqadii 2025 taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa booqday Hargeysa iyo Berbera isagoo kormeeray dekada iyo garoonka diyaaradaha isla markaasina la kulmay madaxda sare ee Somaliland. Booqashadan ayaa muujisay in Washington si dhow u qiimeynayso fursadaha ka jira Somaliland. Dekada Berbera waxay siinaysaa Mareykanka marin istiraatiiji oo ku yaala gacanka cadmeed taasi oo muhiim u ah hawlgallada military iyo sahayda gaar ahaan marka la eegayo xaaladaha ka taagan badda cas. Dhanka kale helitaanka macdanta muhiimka ah sida lithium iyo coltan waxay xoojin kartaa silsiladda sahayda ee warshadaha difaaca iyo tiknoolajiyadda. Somaliland waxay isu muujisay dal leh xasilooni maamul shaqeynaya halka Soomaaliyana wali wajahayso caqabado waaweyn. Aqoonsiga Somaliland wuxuu noqon karaa isbedel istiraatiiji oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika iyadoo fursadani ay hadda miiska saaran tahay.